ayaan halkan joognay maanta iyo maalintii aan imanayay aad bay u kala duwan tahay xaqiiqdii aad baan u faraxsannahay alxamdulilah farxadda ugu dambaysan ilaahay oo na gaarsiiyo isaga ayaan ka rajaynaya insha allah maalmihii aan halkan fadhiinay culimadu markay ducaynayaan inta badan waxaa lagu ducaynayay oo lagu celcelinayay kan midka qeybka qaba oo dabaawo u roon oo furkasho u roon oo kuraayo u roon oo soomaali u roon oo gal u roon ilaahay aan noo soo saaraan baryayay soo sada maay kii sida ahaa ilaahay uu noo soo saaray walaalkeen faysal ilaahay uu soo saaray uu soo baxay walaal faysal waxaan ku leeyahay congratulation ilaahay meesha ugu dambaysan ha ku gaarsiiyo ceebtaadan adduunka iyo aakhira allah ku asturo xilka iyo mas-uuliyadda lagu saarayna mas-uuliyaddu ceeb bay leedahay ilaahay ha kugu asturo ayaan leenahay intaa kadib laba kalmadood baan ka hadlayaa midna faysal baan la hadlaya saddex baan ka hadlayaa midna faysal baan la hadlayaa midna shacab baan la hadlayaa midna xubnaha walaalkeen oo faysal tanaasuliyad baan la hadlayaa in yar ii dulqaado macalin waradana siisay ilaa shan maad iga dhigtay waan codsanaya shacabku waxaan ku codsanayaa horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin toban beri baan halkaa fadhideen dulqaad baad muujiseen sabir baad muujiseen waxaa idinka goonay in xubinka ka mida xubnahan shanta ah mid ka mida inuu soo baxo ayaa idinka goonayne waxaa loo baahan yahay kii isagaa ilaahay uu soo saaree inaad u midoodaan oo garabkiisa noqotaan oo meesha ugu dambaysa aad gaarsiisaan cid walba oo in lala hoos tago loo baahan yahay oo Mandera County ku nool idinkoo midaysan oo iskumida inaad geysaan waa idinka codsanaya nimanka walaalaheena oo u tanaasulay ninka la yidhaahdo faysal mushuga faysal iyagana waxaa leeyahay walaalayaal kursigaan hal mid buu ahaa halkii midna ninkii ilaahay u soo qoray uu ku soo baxay idinkana dad ummaddan ayaad ka mid tihiin ninkaan dhimanin waqti kale uu gaarayaa xilliga aad gaartin adigana sidaan bal ugu midoobayaaye waxaan idinka codsanayaa walaalkiin inaad garab u noqotaan oo aad maxaa yidhahdaa la shaqaysaan idinka ayaa garab u ah oo aad caawisaan oo meel walba ama wax walba idinkaga baahan yahay inaad la qabataan waan idinka codsanaya mushuga faysal mas-uuliyad weyn baa ku fuushay ilaahay kuwa asbaabna kuwa celinaya annaga Soomaali haddaan nahay gaar ahaan garra haddaynu nahay dhibaatada haysto waxa weeyaan qofka mas-uulka dadku mas-uuliyad qofka mas'uulka dadka la midka oo mas'uuliyadda haya ama mas-uul soo maray wuu riixaa uu iska fogeeyaa waa dhaqan Soomaali amida yaqaano walaa waxaan ku leeyahay waxaad wax ku tahay oo wax ku noqonaysid waa walaalaha inaad soo jiidatid oo garab ka dhigatid oo la shaqaysid baa isku noqonaysa iyaga hadday xun yihiin hadday wanaagsan yihiin iyaga ayaa walaal ku ah iyaga ayaa garab ku ah iyaga ayaa wax walba oo u baahan tahay kula qabanaya marka taas inaad si gooniya mas-uuliyaddaad u qaadatido maanta ilaahay kugu asturo wixii oo dhan way soo aroortay intaasoo beri wixii aan u fadhinay maanta adigay ku fuushay xil aad u weynaa ku saaran laga bilaabo maanta walaalaha garabka qabso gacmaha qabso orkacadhe meeshay kaaga wanaagsan yihiin ha kula mareen meeshaad kala wanaagsan tahay aduu mari inaad qofka ummaddan iyo maxaa layidhahdaa dalkan u roon iyo ilaahay kaadhiga ayaa kaaga rajaynaya waxaa kaloo kaa codsanaya ummaddan khilaafi ayaa jira oo haddaba dee markii la sameeyo doorasho noocan oo kale markii la galo khilaafi ayaa dhacaya khilaafa iyaga waxaa loo baahan yahay halkii iyada ee lagu kala guulaystay in looga tago ayaa loo baahan yahay oo midnimo iyo maxaa layidhahdaa in wixii khilaafo oo jiro yaryar in meesha laga saaro ayaa loo baahan yahay marka walaalkeen waxaan leeyahay adigoo cidda odayaashaada waasidaada iyo cid walba kaashanaysa inaad maxaa la yidhahdaa wixii yaryaroo jiro oo dhan meesha laga saaro oo mas-uuliyadda adu aad qaadatid waan kusoo jeedinaya tan saddexdaan xubnood baan la hadlay xaqiiqii markii laga hadlayo maniidhahow beryahan inta arrintan ay socotay aad baan isu xamanay
gaarahaan xubnahan guddiga aad baan oo xaminayay soo sidaa maaha been ha noqoto run ha noqoto de kulley run inay tahay meesha kama muuqato in iyagu ay dhib wadaan in iyagu ay maxay yihiin in iyagu ay saan yihiin wax badan baan sheegayay marka ujeedadii aan nahay waan gaarnay oo maanta waan taagannahay marka ujeedadii haddaan gaarnay wixii ragga lagu xamanayay inay been tahayba soo baxdee walaalayaal guddiga waxaan leeyahay aad baan idin xantay walaalihiin cafiya idinkana shacabka raggan xamanayay cafiya aniga kulli maanta aad baan maxaa u faraxsanahay shalay waxaan islaafo sideed ku dalban doontaa oo xaggee kuli aqayso ilaahay ha nooga dhigo midnimadan aad baad u mahadsantihiin ooga baxay jazakallahu khairan, asante sana.